cod deggan oo Alle uu ku manaystay, yaraantii uu wax badan uu ku xifdiyey, muusigga oo xaggiisa laga mamnuucay. Waxaa waqtigiisa ugu badan uu la diris noqday dhegeysiga khudbadaha Sheekh Xuseen Cali Jabuuti, mid dhegeystay oo dhaafa muusan noqon, ee xifdiyey sidoo kale cilmi korodhsada ayuu noqday. Maxamed Yare maalmihii lasoo dhaafay ayuu si weyn kaga soo muuqday baraha bulshada. Hadalla qiimo badnaa oo hore u jeediyey Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayuu dib Maxamed isagoo hadalladaas ka jeedinaya waxa uu kaga soo muuqday baraha bulshada. Dad badan ayaa sida wanaagsan ee wax uu xifdiyo ku farxay, iyo sidoo kale jeedinta hadal wanaagga uu kaga dayanayo Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Haddaba Maxamed Yare halkee ayuu ku nool yahay? la jooga waa ninkii Sheekh Maxamed ay baraha bulshada maalmahan qabsaday wuxuu ku nool yahay degmada Yoocale gaar ahaan qabalayga Dhagaxtuur Liido. Maxamed Yare maxay dadka ku yaqaaniin? جددي دفينتا فإن البحر عميق يا أبا ترب النبي كيري دنيا جريسو بدو يكون دافتاوي كل قهدي كلا وأكثر الزادة سيدا نسياتسو فإن سفر فوي سفر كوداري هيا وسوقة الحملة وليس كان اسكيرا كابت المارد وانا وكابت أدق ويان وحد فليس عمل كان إلهي درت أقبو كادو عمل فليس درادي وكو أركا يا عمل كان إلهي درت أقبو. Maxamed Yare wadada uu qaaday waa wado wanaagsan, isla markaana u horseedaysa inuu sii jeclaado diinta, isla markaana uu ka fogaado waxyaabaha xun. Maxamed, maadaama weli uu da'yar yahay, waxa uu haystaa fursad waalidkiisa ay ku sii bari karaan diinta Islaamka si uu u gaaro hadaf iyo sidoo kale wanaagga hadda uu ifayo qiimihiisa. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.